cadowga Somaliland runtii aan oran karo waxa ugu horeeya dawladda Soomaaliya ka dhisan waxay dawladdaas wadaa madaxweynuhu ugu horeeya in fadqalalo siyaasadeed iyo deganaansho la'aan dalka laga abuuro sida awgeed waxay runtii bariyahan dambe ku tala jireen in la abuuro ama la inagu dhex abuuro dad reer Somaliland oo runtii anoo ka xun si loo duufsaday macna darro ah in dalkan loo eekaysiiyo Soomaaliya halkii maanta marayso oo waxaynu ognahay Soomaaliya waxa maanta halka geeyay waxa weeye muran siyaasadeed iyo mid madaxnimo marka intii lafteedii laga abuuro Somaliland ba ayaan xogaha ku haynaa in lagu bixiyay hanti fara badan tala badan lagu bixiyay oo laba arrimood u qaybsama kharbudaad dadka reer Somaliland iska horkeeno iyo dhinaca siyaasadda oo deganaanshiyo la'aan laga abuuro waxaan haynaa fadqalada cad waxaanu haynaa inay adeegyada naga qorteen waxaanu haynaa inay lacag badan ku bixiyaan Somaliland dad Somaliland darisa inay dalka khalkhal ka ridaan waxaanu haynaa kuwa kale oo hubaysan marka intaaba waqtigeedan soo bandhigi doonaa laakiin imika digniin baan ku bixinaynaa in dadku ka aweer ka noqdo ay ka digtoonaadaan